Assalaamu calaykum. Ku soo dhawow taxanaheennii caalamka akhriska qaybtii shanaad. Qur'aanka Kariimka ahi waxa uu inoogu bushaaraynayaa inuu wado guusha dhabta ah. Isla qur'aanka bushaarada wada ayuu Alle subxaanahu wa tacaala u doortay inuu ku bilaabo ereyga Iqra oo ah akhri. Natiijo ahaan waxaa isku xidhan guusha qur'aanku wado ee bushaarada ah iyo akhrinta qur'aanku wada ee amarka ah. Dadka guulaysta inta badan waxay xoogga saaraan hawl gaar ah muddo cayiman ilaa ay dhammeeyaan ama libiqsadaan oo qabyada waa ay necab yihiin. Sidan oo kale ayaa lagu arkaa akhristaha wanaagsan. Qofka doonaya inuu buug akhriyaana inta uu kala furo kama tago isagoo aan dhammayn oo mid kale iskama bilaabo. Akhristayaashu hadafyo ayay dejistaan markastoo ay wax akhris u fadhiisanayaan. Waxaynu ka hadlaynaa akhristaha wanaagsan inta buug uu akhriyayo, inta bog uu fadhigi kasta ku akhrinayo, iyo weliba faahfaahintoodu waa ay qoran yihiin. Sidan oo kale ayaa lagu yaqaan guulaystayaashana. Dadka akhristayaasha wanaagsan ahi waqtigoodu waa muhiim. Ma jiro waqti firaaqo ah oo laga helo qaamuuska akhristaha wanaagsan. Walidaalika ayaa sidaas oo kale guulaystayaashu uga faa'iidaystaan waqtigooda. Inaad noqoto akhrista wanaagsan ayaa kaa dhigi kara waqti maamulo wanaagsan. Inaad noqoto waqti maamulo wanaagsanina waxay kaa dhigi kartaa guulayste wanaagsan. Qofku marka uu akhristo wanaagsan yahay, xagla badan ayuu wax ka eegaa. Waxa uu isku dayaa inuu uga faa'iideeyo dadkiisa oo wax soo saar yeesho. Khudbeeyayaasha dunida ugu caansani waxay ahaayeen dad akhrisku saameeyay oo noloshooda ka muuqday. Qofka qoraaga amba khudbeeyaha ah ee guulaysta waa qofkii uu akhriskiisu ka sarreeyay. Haddii waagii hore ninka uu ka maahmaah iyo gabay xiftin badnaa uu ka aftahansanaa, maanta waxa hubaal ah ninka uu ka taariikho iyo ogaal badan yahay uu ka aftahansan yahay. Caqliyadii dunida soo maray ee iyaga ka horreeyay ayaa akhristayaasha wanaagsani ka faa'iidaystaan. Markaas ayay sameeyaan xirfadoodii qoraal iyo toodii hadalba. Akhristayaasha wanaagsani waxay maskaxda u arkaan inay tahay muruq loo baahan yahay inuu shaqeeyo. Guulaystayaashuna maskaxdooda ayaa ay si maalinle ah akhriska ugu jimicsiiyaan si aan u lumin firfircoonidoodii. Guulaystayaasha waxaa caawiya inay wax barteen marka ay buug gacanta u qaadaan oo ma bilaabaan si ay u dhammeeyaan oo keliya, waxay u bilaabaan si ay wax ugala soo baxaan. Sidoo kalena waxaa akhrisku baraa in ay wax kastoo ay la kulmaan xog ama xaqiiq kala hadhaan. Buugga akhriskiisu uma aha laylis iskuul oo ay tahay inay ka soo shaqeeyaan, waa fursad ay garaadkooda ku kobcinayaan. Guulaystuhu buug kasta oo akhrinayo, xataa kuwa malaawaalka ah, casharra ayuu ka dhex ururiyaa oo kala soo dhex baxaa.